kulanti wacan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan halkani waa bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa waxa bulsho nagu soo booqday maanta abwaanka Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo loo yaqaan Jiheeye oo abwaan runtii abwaaninta kamid ah Soomaaliland abwaan markii hore ku soo dhow barnaamijkan waan dhawahay aad baad mahadsantahay su'aasha horeysan ku weydiinay waxay tahay ayaamahan ba arrin baa jirtay u dhaxaysay أحمد عثمان قيلي iyo dawladda Djibouti arinta maxaad ku ogtahay maadaama aad Soomaaliland iyo Djibouti labadaba aad nin de ma taqaana aqoon u leeyahay hortii arinta aragtidaydan kaga jawaabaya sida aan u arko runtii إسماعيل عمر قيلي يو أحمد عثمان قيلي إن حديد وناكسن يو وناك بدح يالي كبعدي يضو أنه وح خلافة كمكل أيوم با هالمر إن استقوا السفر كمكان يا أحمد عثمان قيلي أيوم بو حفيز كيسي بوليس يماتين maalin labaad bay yimaadeen shaqaalihiisa baa intay la hadleen isagoo safarkii ku maqan yiri boolis baa maalmahaba nagu soo noqnoqonaya ku raadinaya ka bacdina intaanu sooban noqon ayaa warqad loo dhigay madaarka si loo qabto markuu soo galo dad badan oo kamida dadkii xogagaalka ahaa iyo dadkii reer Djibouti xogaalka waxa inta madaarka loo dhigay warqadan qabashada ayaa u digay oo ku yiri in ay isku imanin ka bacdi Axmed Ismaan Gelle saasu Djibouti aanu ugu noqonay Soomaaliland yimid Axmed Ismaan Gelle marka hadii la doonayo in la qabto inta loo yeedho amar la siiyo la soo gal madaxtooyada la xidhi lahaa ma la qaban lahaa hadii la doonayo muhiimadu ma yahay in la qabto waxay ahayd in la firdhiyo oo maalkiisa iyo xoolihiisa uu ka cararo isagoo naftiisa la cararaya dabeedna Soomaaliland buu yimid Soomaaliland markuu yimaadana Axmed waa nin reer Soomaaliland oo reer Hargeysa oo Hargeysa u dhashay oo ka dhashay jilbiyada waaweyn ee reer Sheekh Saxaaq muhiimadu waxay ahayd in reerkoodii dabeedna qayla dhaanti kula dhex dhaco reerkoodiina dabeedna ay arrinka ka gadoodaan gadoodkaasoo lagu sawirayo in ay arrinka iyaguna lug ku leeyihiin qabiil ka mid ah qabiilada magaranaysa Soomaaliland si labada qabiil iskugu dhacaan oo laba reer oo waaweyn oo reer Hargeysa dabeedna caasimadu qaasanto marka waxaad leedahay abwaan ujeedada ugu weyn waxay ahayd in la isku dhufto Soomaaliland gudaheeda marka waa maxay ujeedada laga yeelan karaa taa waxa weeyaan Soomaaliland waa meel dekad leh badda cas ku taala istiraatiijiya Djibouti waa sidoo kale muddo badan waxa shaqeynaysay Djibouti oo bariga Afrika iyo geeska Afrika ba waraabinaysay dhaqaale badan bay ka faa'iideysay caalamkuna iyadoo soo marayay dabeedna DB Wall siday uga soo wareegtay u timid berbera waxa halka uga muuqatay dekadii la dhisayo dabeedna halka maxaan ku raadayay ay ka soo la qaybsanayso haddaanay ka badin waan gartay marka waxa weey ujeedadu waxay noqonaysaa dagaal dhaqaale meesha ku jira dagaal dhaqaale iyo dagaal siyaasadeed ba ayaa ku jiray dabeedna muhiimadu waxay ahayd in dagaal ka dhaco oo ay DB Wall iyo Coca-Cola iyo shirkadaha caalamiga ka firdhadaan maxaan ku raadayay wufuud caalamiga ay markay noo timid iyaga laftigooduna dhibaatadaas soo dhacday ay la kulmaan oo ay dib uga noqdaan oo meesha xamar iyo Hargeysa waa isku mid la yiraahdo taas loo jeedo baad leedahay waan gartay su'aasha labaad ku weydiinay waxay tahay waxa jira warqad baraha bulshada la soo dhigay oo wasaaradda cadaaladda ka soo baxday si la leeyahay laakiin wasaaradda cadaaladdu way beenisay arinta maxaad ku ogtahay laftigeeda wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maxkamaduba way ku shaambadaysnaayeen warqadda shaambadahooda maxaa isku geeyay sidii suldaankii hadlayay noo sheegay
weliba markuu kala hadlay wasiirkii oo ay ismaaciil cumar geelle isku reer ahaayeen wuxuu yidhi ma reerkaygaad u jeedaan beenintii uu beeniyeyna in kiis maxkamadeed oo jabuuti ka yimid laga furayo hargeysa muu beeninine wuxuu beeniyey ya oo uu dhinac kale ayuu ka maray ujeeddadii wuu garab maray markaad wax beeninaysana wixii baa toos loo beeniyaa la yidhi soma salaadiintu waxay sheegeen in isaga laftigiisu yidhi nacaayey markaan arrinkaa kala hadalay wuxuu yidhi cid kale oo ka mida wasaaradda oo caydeyna ma jirto labada ereyba isku difaacay labada ereyba way jabnaayeen difaacoodu arrintanna arrin jirta inay tahay de intaasoo laamood ayay martay intii oo isku yimid oo beeninaya maynu maqal may intii baa isku iman lahaa oo beenin lahaa dowladda ayaa beenin lahay into madaxweynaha ka hadli lahaa oo beenin lahaa ma fahantay arrinkan madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa uu madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti damcay inuu u dhex maro duminta qarankiisa didinta iyo baabiinta horumarkiisa taas u aragtaa abwaan miya arrintaa waan gartay su-aasha kale ku weydiina waxa wey mar dhawed waxaad ka dhawaajisay in dagaal dhaqaale iyo dagaal siyaasadeed ma jiro dagaalka dhaqaaluhu waa maxay saamayntu ku yeelanaya bulshadan bulshadani waa dowladaan la ictiraafsanayn dowladaan la ictiraafsanayn waa markii ugu horreysay shirkado caalamiga ay soo aaminaan hadday qaar aaminaan oo ay ku xasilaanna kuwii kale ayaa daba socda waayo shirkaduhu waxay doonayaan dhaqaalay doonayaan sooma iyo amniyo nabad iyo meel xasiloon way ka shaqaystaan marka intiiba hawshoodii markay ka helaan aqoontii iyo fasiliteedkii iyo dadkii u shaqaynaya ay helaan meeshiina lagu soo dhoweeyo nabadina taallo inay ka shaqaystaan oo ay africa u maraan meel muhiima ay tahay oo iska soo daba dhacayaan way iska caddayd hadday siyaasadda caalamka tay iyo hadday ay xagga dhaqaalahaba tay marka waxay ahayd ismaaciil cumar geeli wuxuu fulinayey u danaynayey dalkiisa isaga oo doonayay inuu burburiyo dalka somalilan wuxuu se hilmaansanaa hadday somalilan dunto inaanay jabuutina dhisnaanayn aragtidaadu waa taa soo maaha okay ugu dambayntii maadaama xaalku halkan marayo waxaynu ognahay in bulshada somalilan oo dhan ay ka hadashay arrintan aada looga qayliyey maxaad u soo jeedin lahayd xukuumadda waxaan u soo jeedin lahaa waxay dadku ka hadlayaan axmed cismaan geelle ina geelle arab oo loo dhiibaya jabuuti yaan loo dhiibin bay ka hadlayaan laakiin axmed cismaan geelle dhiibista ka hor dhiibis iyada haba sheegine ya 128 milyan oo dollar baa ka maqan 128 milyan ee dollar cidda uu ka maqan yahay waa reer somalilan 128 milyan in lagala doono lagala soo qaado jabuuti marka arrintaas waxay u baahan tahay baad oo loo gurmado weeyaan in laga doodo laga hadlo qabashadiisa yaan la qabanin maaha marka waxaad leedahay xoolo intaa la eg baa ka maqan hantidiisoo dhan baa lala wareegay haddii aan arrinkaa marka waxaad leedahay abwaan arrintaa taasaa ka muhiimsanba qabashada laga hadlayo in hantidii lasoo dhiciyo baad leedahay haye waxaa kaloon ku soo jeedinayaa talo beelaha somalilan in aan la isku dhufan iyaga dhexdooda oo haddii ay kacaan oy dagaalamaan iyagu dhexdoodu in ay hadafkii iyo ujeeddadii waxaan laga lahaa fuliyeen saasay noqonaysaa waa hagaag haddaba ugu dambayntii waxaan maadaama aad abwaan tahay oo runtii gabayo badan aad tirisay nin suugaanta aada ugu xeel dheer aad tahay wax suugaana oo aad maanta halkan ka soo jeedinaysaa ma jiraan waan ka soo jeedinayaa waa arrin taariikhiya
dhacdo walba oo timaada hadalka marka laga baxee lagu xuso suugaanta ayay dhacdoodaa wax laga aamusi karana maaha waxaan ka tirin doonaa gabay la yidhaahdo dictator sida gabayga magaciisa ka muuqata inaan magaciisa sharaxa badan ka bixiya lagama baahnaa wuxuu yidhi suugaanta qarad kale tufka iyo qiyaasta leh qorshihii iyo abbaarta leh qab khilaafo kibir kale quursiga handiida leh qaladaad saluugga leh inkastoo qawiiluhu iga siiyey qayb weyn ma qaabaynin waayadan ma qormayn dharaarahan ma qastiyin habeennadan kuma qoomin milil dadan qalcad daallin kuma dumin dulmi qooqay kuma ridin biidhiqaata kuma xusin qayladhaanna kama dhigin sababtoo ah qulumbow intii hore qudhiya maan lafjabkaa qiyaasnaa gunnimaan la qaayibin dadnimaan maryaha qubin wixii loo qudh go'ay baan qaab dhibaada loo bixin qarankan u afar kale qiraal togan oon qabar hagoognayn runta aan ku qeexe qasnadaha damiirkiyo ku qurquriya garashada nin iimaanku qarax yahay kana qaawan garashada dareenkuna qallalan yahay gobannimada qaadacay qabqab dhaafay laasimay in kastoo la qaayibo qosol loogu sacabtumo qadar beenta laga guro loo qaato heer qaran lagu tiriyo qaafada keli taliyo qiimo leh tan iyo quufle lama arag oo digtaytar qaaliban sooyaal kumuu qorin ku darsoo qormada guud qafqaflow nin tacadiyey koob la ysku qaaxriday cadow kama sad qaadoo qoodhnimadu sheegtaa midnimada qaskeediyo kama foga dhallaanqalab ku darsoo la sii qaad maamuuska laga qaad waa qaafil iyo tuug qalinkuugu dagayo jahli qoorta loo suray qaradkiisu libin ma leh qorshihiisu fulin ma leh qasdigiisu guul ma leh qiimihiisu sharaf ma leh qowlkii xaqiiq ma leh waana qaari caamaa ku darsoo qumbacashada ku darsoo qumbacashada dusha qolofta mooye hoosta waa qalfoof madhan tale waa ku qaybdiid garqalloocan kama tago ma qaraarin kara ruux waa nimaan qajilahayn wuxuu ficil ka qaataa nin qadoodii ka hadliyey qaldhabaha asaasaqay sabigiiyo qalqaalliga bukaan waadhka lagu qalay iyo qaar ka sii daran mana laha qaneecaad mana aha qof kaamila mana qaato tala sugan mana qira asaagii nin qar maaha lagu jabay nin ragana wax uma qabo alla qabay ayaan ma leh inna loo qushuuco waa qabiili baadila waa badraani qaafila waa qareen iblaystiray markuu qaradka leeyahay qarafaysta kama dhaco markuu tiisa qumiyana waa daallin qaanaca qiirada iyo xaaskiyo qayladhaantu waa u dhaqan libgad iyo qab iyo kibir qof bartaaba kala kulan libgad iyo qab iyo kibir qof bartaaba kala kulan qalbiga iyo damiirka iyo qurqurshaha hankiisuna waa qolal fakrigu dego in la qaado mooye wax ma qaadi kara yoom cidda qiimo gelaysiiyo cid kastoo qadarisaa wixii ay ka qaadaa waa qoomamiyo ciil iyo qiiro iyo yaab wuxuu dabin u qoolaa nin xabaal ka soo qoday sun wuxuu u qooshaa nin qulaamin jiray malab wuxuu quursadaa weli qiimo kule carshiga sare qorshihiisu kama foga
inuu qarankan khaayimo inuu qara farliga sudho inuu qulubu meel dayo inuu qaadan waa dhaco inuu qoom dhan iibsado inuu quud ku baayaco inuu been qardhaasale qaabku doono ugu dhigo ku darsoo qumbacashada waxa aan la qarin karin waa nin qoonsimaad badan waa nin quuriwaa badan waa nin qaabilaad daran waa nimaan cid qabatii xeerkaa qabtaa jirin ku darsoo qumbacashada wixii sula qubuur galay wixii sula qalloocsamay ama quufle ka hor dhacay nin qaniinsan weeyo qurun dura qubuur galay sida dhidarka soo qoda waa nin qaaba qowsayn halyey qaran u quudho qumac loogu tala galay cadow la isku qaac riday ummaddiisa ku qatala sida dadqalatada waa nin sabiga qowraca sida bahalka qowdhama waa nin samaha qowlala sida qambaar haad raqda waa nin qaabila kulna waa nin qarandida ka matala qalwiga jaan qaab kastood u eegtana bidhi qaata raaciyo qurux mala dictator ku darsoo qumbacashada qofkii tala ka qaatiyo ciddii gacan u qaada sida qurun bud lala dhacay wixii ay ka qaadaa waa ceebka qaraweyn halkaasaan gabaygaana halkaasaad ku soo dhammaysay daawadayaal intaa waxaa inoogu dhammaaday waraysiga aanu la yeelnay ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo maanta nagu soo booqday xarunta bulsha t v ee magaalada hargeysa abwan aad baad u mahadsan tahay